السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين all عالمكم مشهد كجوكتين بودي السلام سود وهذا ولا ليال فرتون أدبنكم سود وين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود ولا شيء أدبن سود وين أجيبك هاي waxaa ila daadahi doona barnaamijka insha Allah raal hada xogaa ila jiraan nagashay daadahi doona walaalkay Cali Cabdi Cilmi oo maaragtay hadda qadka ku soo jira insha Allah aad iyo aad aan idin soo dhaweynayna soo dhawaada wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waruux Cabdi Kariin aad iyo aad aan idin soo dhaweynaa gabigiinba soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa ma sha Allah horumarka ku tallaabsanay dalkeena Soomaaliyeed ku tallaabsaday وكسود وين على عبد علمي سودو مارتي مسؤول سرع عادي هذا كو أركا هذيك مية أركتها موال كسود كويه صيف عمل كو أركا سلطان ما شاء الله سودو والله أوكي مركب عادي هذا اللي سودو برامج نوشة القراية إلهي دين بورو نوشة القراية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة حيدر الأوري عادي هذا كسود وين مسؤول سرع حيدر الأوري سودو والله أدي هذا كل سلام رجس واي وأظن محمد سودو هذا جيبي بالنسبة مارت برنامج كنوشة القراية ما شاء الله. موضوع ما أنت قال لنا وحواي هرب مربع للجاري ضل كان الصومالي هرب الصعيدي على وبان لا لكن على ويننا إن المارتي أن كفوا جبنانه صوب المارتين وقت تقلصن وذركتين مجال المقدشمان ما شاء الله بدرميه قبل كبراندل أو دحلو غينا أيام مجالة أدي هذا في سودو ولكن مارت أحمد عداني أحمد عدان ده عارف سودو ولكن صفية أدي هذا سودو هنا أنتوا ناقصوا بدنا أيوة مارت برامج مارت نوشة القراية إلهي دندورو نوشة القراية برامج كوحي لدى هنا على عبد علمي هل يجسوا ماليات أو حبين مهمة أو من مقرنا سودو على عبد واكو سلامة يا سودو برامج وأوجل ما شاء الله. موضوع مارتن الله كان horumarka iyo caasimada dalka Soomaaliyeed oo iftiinkii maaragtay soo ka shidmay mugdigiina Ilaahay maartay soo naga daboolay wadadii General Daawud oo maanta la dhagax dhigay jidkiisa maartay soddonko asugun dabayaaqa wadadii wadnaho la dhisay Maka al-Mukarrama hore loo dhisay wadadii shaqaalaha la dhisay meelo badan wadooyinkii oo la dhisaayo magaalada shidantay wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhaw walaalkay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد آذن أديك إيو أمد الصوماليات إن داوانيسو ميل كستو أجوكتان با سلامة إسلام كايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانكو سلام لي أنت كدب ما شاء الله إلهي ومهد اسكاله الحمد لله وح إلهي لغو حمدي وحاوي مرهدي شعبكي iyo madaxdii aan loo dhaxaynin oo ayaga isgacan qaadayaan oo ayaga waxay rabaan isweydiinayaan oo ayaga waxay rabaan message iyo fariin isu dirayaan arinta aan ku farxay waxaan akhriyay saaka arintii igu farxad badnayd inta social media aan ku guda jiray farxadaasi runtii waxay ahayd sheeko aad u xiiso badan sheekadaasi waxay ahayd sheeko aad u qurux badan waxaana loo qoray sidatan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada wiilka da'da yar ee Taabit ayaa saaka sida caadada bay ahayd waxa uu u shaqo tagay xafiiska gobolka si shaqadiisa bulshada uu hayay uu u guto arintaasi kadib xalayna wuxuu ku seexday oo qorshihiisa maalmeedkiisa kamid ahaa in biri oo maanta ahayd uu furo wada muhiim oo halbowlo u ahayd magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir ba oo isku xireysay General Daawud iyo warta nabadda iyo meelo badan degmooyin badan oo gobolka ka tirsan si u dhagax dhigo ma sha Allah inta kadib duqa magaalada oo aad la socotaan hadee inuu yahay nin madaxa oo gobolka Banaadir iyo laba jago waaweyn isku hayo cid kama aysan filaynin inuu bajaaj raaco gacanta u taagto sida qof rayid oo kale laakiin arintaasi way dhacday waxa dhacday xafiiskiisa soo hortaagan buu gacanta wuxuu u taagay bajaaj meesha maraysay kadibna way yaabeen dadkii ama la shaqeynayay ama staafkiisa waxay dhaheen seed wax ku wada mudana gudoomiye
waxa uu yiri aniga shacabkana lama kala dhaxgalo sida darteedna go'aankayga waxa weeye in bajaajtaan aan raaco inta kadib waxa dhacday asaga iyo ninkii bajaajka waday baa dhaxas ku wareystay malaha markaas muusan doonayn inuu u sheego gudoomiyihii inuu yahay laakiin wuxuu kuur galayay shacabka iyo maaragtay waxa ay qabaan fikradda ka guuxayso ay u hayaan madaxda ninkii darawalka ah ee bajaajta waday baa su'aasha ku hormaray wuxuu yiri niyow su'aal ma ku weydiin karaa wuxuu yiri dabcan ha welcome soo dhawow mudane waxa uu yiri Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir malaha arrintaasna wuu iska qarinayay si uu wuxuu rabay inuu xog ogaado qiyaasteeda say tahay waxa uu yiri maya niyow dad badan oo hore ay weydiiyay malahayga waxa weeye aad baan ninka isugu eegna wuxuu yiri niyow matid oo waan ku aqaanay gudoomiyaha gobolka tahay inaan ku hambalyeeyaan rabaa ma doonayo su'aal ku dhibto inaan ku weydiiyo wuxuu yiri waad maasan tahay waxaad maartay ugu hambalyeeynaysan waa shaqaani waajib aan u lahaa laakiin su'aasha soo daa wuxuu yiri markii aan sameeynay maalin dhaweyte mudaharaadka aan ku mudaharaadaynay wadada Makka al-Mukarrama oo aan ka cabanaynay jidgooyada iyo ciidamada AMISOM oo u tag wax ilaahay abuurtay oo wadada naga xirto oo jiiro dadka shacabka ah oo dhibaato nagu sameeyo markii aan maartay ka mudaharaadaynay wax weyn baad noo qabataa arrintan oo ku diirsan mudana gudoomiye sidaa darteed waxaan ka codsanayaa in tilaabooyin kale oo kuwaas la mid ah ku sii dhaqaaqdo halka waxa ka dhashay isfahan baa ka dhashay marka objective-ka waxa weeye macnaha ujeedada sheekada nuxurkay leedahay waxa weeye markii aan akhriyay kadib malahayga waxaan isiri arrintani ama tahay arrin la qurxiyay inkastoo gudoomiyaha sawirkiisa iyo bajaajtii oo isku sawiran ba halka lagu soo sawiray haddana maskaxdeedii ana sheekaysanay oo waxaan iri oo maxaad ola yaabay mar haddaad aratay prime ministerkii ra'iisul wasaarihi oo caseeyaal gacan qaadayo shaah la cabayo haddana waxaan iri maya niyo arrintaasi ama la dhoodhoobay hadda maskaxdeeda waxay tiri maya waa xaqiiq mar haddii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo aad aragtay oo banooni la ciyaarayo dhalinyaro arrintaasi waxay noqotay arrin aan ku qanay runtii ujeedadana waxa weeye aan markaas ka watay aad baa u maasantay ustaad Axmed sii wad qaybta kale aad iyo aad u maasan tahay barnaamijkaas saaka markaan rumaysan weynay waan la xiriirnay gobolka iyo nidaamka gobolka waana la soo xaqiijiyay inay sax tahay ma sha Allah aad iyo aad aan idin soo dhaweynaa Liban Cabdulla Culusow walaalkay maaragtay Saacdiya walaashay Umar maaragtay dawlad jacel soo dhawaada Ramla iyo maaragtay Cabdi maaragtay ana walaalkay anjax soo dhawow guuleysta midnimo qaran ka iskale qof kasta oo Soomaaliyeed oo maaragtay xiiseynaysa in qabyaalada Soomaaliya laga taqaluso oo maaragtay loo gudbo midnimo iyo qaran awood leh oo sidii adduunka qarumaha jiray u dhiseen dalkan uu noqdo waa inay midnimo qaran ku soo biirtaa midnimo qaran waxay diyaar u tahay inay gacmo furan ku soo dhaweyso cid kasto oo Soomaaliyeed oo maaragtay ka damqatay dhibaatada ku dhacdo dalkan iyo dadkayna iyo iftiinka yar oo hadda noo soo baxay oo dawladnimada ka hana qaaday caasimada dalka Soomaaliyeed oo maamul gobolka oo arkayna maaragtay bil kastaba wada la dhagax dhigayo magaaladii shidantay nidaamkii iyo kala dambeyntii la soo celshay dawladii Soomaaliya si xur ay uga shaqeynayso aad iyo aad aan soo dhaweynayno horumarkaas inaan hore uga sii socono oo maaragtay yaan naga naqanin maaragtay horumar dhicisooga dawladda la shaqeeyo dadka Soomaaliyeed dawladda la shaqeeyo annaga midnimo qaran nadaan ay manin guul wadayaal dawladda markastaba maaragtay ceebaheera daboola maaragtay waxa dawladdan waa u sheegayno dhaliilahay leedahay dawladdu wax allaale wixii dhaliilahay leedahay waa loo sheegayaa wax allaale wixii horumar hoy sameysana la xaqiri maayo waa la sheegayaa mideynta dadka Soomaaliyeed dawladnimadu ma ahan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare inta la shaqeysa ma dawladnimadu waa dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ilaa adduunyadan insha Allah uu sii jirayso ilaahay baa garanaa inta sii jirayso waxaan maaragtay sii soconaynaa insha Allah haddaan maaragtay mid hadda noo dhisan aan la shaqeey weyno waxa waaye meeshana fadhinayna waa dawladda hadda dhisan oo maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminaya in la shaqeeyo wixii qalad ah gashana sideedaba waxa lagu xalli karaa tasuurka dhexdiisa iyo golayaasha dhexdiisa laakiin golayaashu qaar waxa ku jira maaragtay aan Soomaalidu aad uga shakisan tahay oo u shaqeeya maaragtay cadawga ummadda Soomaaliyeed
oo laga dhexli karo wasiirada oo laga dhexli karo maartay baarlamaanka oo golaha sare laga dhexli karo saraakiisha dawladda dadka Soomaaliyeed waa inay iska ilaaliyaan waa inay iska ilaaliyaan oo qof kastaba ficilkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo say dalka ugu shaqeynaysa waa inay u diyaar garoobaan oo arkaan wadankooda ilaashadaan walaalayaal wadankan haddaan ilaasho weyno oon anagu dad u naqaweyno waxa naga qaadanaya dad kale sidii ba dhacday wadamo ka badan ka dhacday waad aragteen Kurdistan maartay 120 sano waxay hulgamaa inay dal noqdaan waxayna ahaayeen dal bariga dhexe ku yaalo aad u awood badan oo maartay dawladda ay haajireen waxa lagu kala diray Syria Iraq maartay Lebanon iyo maartay Turki iyo ay lagu kala diray hadda waxay qodayaan hadaad aragto saxaafadda adduunka aad fiirsataan wax buuxlay qodayaan inay ku kala jaraan rabaan ciidamada Iraq oo sii socdana inay iyaga la dagaalamaan ba la barko u hadii maartay daash mash ka saaraan marka walaalayaal dalkeena waa inaan difaacno waa inaan dawladnimada difaacno maamul goboleedyadana walaalayaal wadankan aan hadda ku noolna magaaladan aan hadda joogo iyo walaalkay cali cabdi magaaladu joogo waxay leedahay dawlad hoose wax la yiraahdo oo maamul government maartay local government hoose ay leedahay waxa wadanka oo dhan maamula maartay dawladda dhexe oo Angela Merkel hogaamisa maartay maamusha governmentiga meeshan local governmentiga iyo buxu Faransiiska waxba kama galo hadduu tagno soo shacaba oo socdo maartay sidii shacabku socdo uu tagaya waxa la xiriira dawladda dhexe la xiriirta maartay nidaamka siyaasadda arrimaha dibadda la xiriir annagana dastuurkeenu saas uu qaba laakiin maamul goboleedyada dawladda dhexe dhinac maraya shacabka la jooga waa inay ka diidaan waa inay yiraahdaan anaka siyaasadda arrimaha dibadda dawladda dhexe nooga wakiila marka dawladda dhexe waa in la shaqeeyo walaalayaal saan u naqano dal awood leh oo dadkiisu sharaf leeyahay saan u naqano haddii laakiin la isku dhinac cararo oo maanta madaxweynayaashii la cambaaray madaxweynihii Soomaaliya la cambaaray oo ra'iisul wasaare la cambaaray oo magaca laga dilo in sawirro xun iyo nidaamyo maartay aan u qalmino qoftu markay aragto mural la isoo laga soo sameeyo social media la soo dhigo waxa waaye dalkaaga bad maarta lagu haysa marka walaalkay cali cabdi waxaan kugu soo dhaweynayaa nidaamka federaalka iyo Soomaaliya aqabadu ku yahay iyo faham la'aanta dadka Soomaaliyeed ka haysata bal inaan noo taabato insha Allah maadaama aad qabiir aad ugu dhunduleela maarta arrimaha Soomaaliya geeska Afrika ta aad baa u mahadsan tahay Axmed runtii ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa 70% waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dhalinyaro 170 ka dhalinyaradaana waxaa inta badan la sii sheegaa inay yihiin kuwii dhashay burburka ama Soomaaliya markii ay ku dhacday dawlad la'aanta marka sababtay dadku inay wadaniyad la'aan ay ku dhacdo oo dadku dawlad ay garan waayaan oo dadku ay ismaqli waayaan oo dadku administration iyo cadaalad iyo waxaan ay fahmi waayaan waxa sabab u ah inta badan ayaan dhihi karnaa dawlad la'aantii waayo canuga xilliga dhashay 28 sano 30 buu sii cagacageenaya ama 30 ba iska dham intii dawladda ay maaragtay ligliiganaysay oo jamhadaha ku kacsanaayeen marka hadda 30 sano wax yar ma aha waa qof 30 sano jira waa qof aad u weyn marka waxaad ogaanaysaa halkaasi waxaad ka ogaanaysaa in nasiib darro ay dhacday generationka iyo jiilkii annaga aan ka mid ahayn in nasiib darro ay ku dhacday oo ah dawlad la'aan oo ay ku soo koreen fawdo qalalaaso iyo administration la'aan marka taas ayaan isleeyahay waxa horta ay u jecel yihiin dadku in dawlad la'aan ay iska noolaadaan sababtana waxa weeye 30 sano dawlad la'aan ku noolaayeen laakiin wax bilaadan ku noolaan kara ma jiro dawlad la'aan laguma noolaan karo waayo waxaad ogsoon tahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadii uu laba qof dirayo ama laba qof ay midoobayaan mid buu madax ka dhigi jira si markaasi ay u noqdaan kuwa leader ah oo go'aanka ay leeyihiin xoojiyo iska badaa adigu shimbiraha iyo xawayaanka waxay leeyihiin leadero marka waxa loo baahan yahay walaal dadku in qaarna shacab ay noqdaan qaarna madax ay noqdaan qaarna ay noqdaan maaragtay dad wax barto oo arday ah qaarna ay dawladda u shaqeeyaan qaarna ay ganacsadayaal noqdaan macquul ma noqonayso impossible weeyo wax dhici karana maahan ummad dhan oo 15 milyan kulligood in siyaasiyiin ay noqdaan oo Facebook ay ka wada shaqeeyaan shirkadda Facebook anaga malihin ninba iskale oo ku qaato lacag oo iskale asag wax ka qusaya male hadalka aniga hadlayo wuxuu ku helayaa view buu ku helayaa dhaqaale ku helayaa waa nin business ah waa ninka labaad ee dunida ugu lacag badan marka wax weyn oo ka qusaya ma jiraan adiga asagaad u shaqeynaysaa
marka adoo dalkaadi ku duminayo oo dadkaadi ku duminayo in haddana nin kale aad view iyo comment siiso oo lacag siiso oo waqtigaada iyo lacagtaadiba isugu darto waa nasiib darro marka waxaan leeyahay dadku horta ha barteeno dawlad macaanka ha barteeno dal macaanka qarannimada dadka ha jeclaadeeno waayo dadka qarannimada haddaysan jeclaan oo waddankooda aysan difaacan waxa weeye waddankooda waa la qaadanayaa waa loo difaacayaa dad baa qaadanaya kale marka walaalayaal wixii nagu dhacay way nagu dhaceen 30 sane wixii nagu dhacay aanan u shalaayin waxa weeye waan kufnay waan dhacnay haddana aan istaagno aan isku tashanno dawladdeena la shaqeyno dalkeena la shaqeyno nasiib darrada dhacday waxa weeye waxaad arkaysaa dawlad baa la dhisayaa dacaayad baa lagu furayaa shucaca baa lagu furayaa meel kaste waxaa loo raadinayaa cillado marka waxaan dhihi karaa soomaalida hadda way gudoomiyaha sharafta leh jamiilo maaragtay soo dhawow aad iyo aad aan ku salaameynaa ma sha Allah waxa soo gashay gudoomiyihii maaragtay midnimo qaran jamiila maaragtay jaamac walaal soo dhawow aad iyo aad aan ku soo dhaweynaa cali horu sii soco aad iyo aad aan soo dhaweynaa all inta nagula jirto maaragtay live-ka nagula jirta noo sheel gareey dhammaan waan soo dhaweynayaa dadka sharafta leh Soomaaliyeed nagu soo biiray oo nabadda iyo horumarka diyaarka u ah sida anagu diyaar ah u nahay gudoomiyahana waan soo dhaweynaa Jamiilo JJ aad baad u mahadsantahay midnimo qaran annaga tusaale ahaan midnimo qaran baan kaga sheekeynayaa dhowr boqol baan ka koobana wallahi billahi baan ku dhaartay inaan hal qof oo qabiilkiisa qabiilu yahay inaan aqoon Soomaalinimada naga badan walaalayaal waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala qabiilka markii uu ka hadlayay waxa weeye wakiila ayadiisa waxa idin ka dhignay shucuuban wa qabaa'ila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالله سيراعية قبائل iyo kooxo kaga dhigna sababteeda ma ahayn marka qabaa'ilada ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigay inaan isku dulmina ma aha anaga waa inaan isugu gargaarno sababta waxa weeye tusaale ahaan qabiilka waxa loogu talagalay nasabka inuusan lumin oo adiga habareerta aadan guursan oo wiilkan uusan guursanin eedadii oo walaasha aadan guursan oo nasabki markaa uu lumaya meeshii waxa fawda dhacayso fawda xagga diinta dhacayso oo dadkii waa khaldamaya khalad baa dhacayo si taa loo ilaaliyo iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala nasabkeena loo ilaaliyo waxa looga dhigay shucuuban wa qabaa'ila laakiin ilaahay wuxuu sii raaciyay inna akramakum indallahi atqaakum sharaf iyo cizo waxa leh midka ilaahay ka baqo qofka ilaahay ka baqa marka waa kuma qofka ilaahay ka baqa waxa weeye qofka diinta waxay ilaahay amartay qaato weeye وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحاليري نبي محمد وحي إن لا إمادة قاتا وحي إن كربنه كهرة مركا ولا لما هن دينت ضدكم إن قارنا قاتان وصلاة دي تكدان إسبارنا أي ديكتان دولدنا أي ديدان دولد يومارت النظام كمركا هجره إن لا ديعانا وابا شيء دينيا نوي وعبد الله إلهي عابده ورسولك سعابده waxa weeye markaas kadibna waxaad dhageysataan oo dhagaa u taagtaan kuul amriga idina marka hatta hadii qofka madaxda ah aad wax ka tabanayso ma ahan meel publiga inaad ku sheegto waa shay diiniyana waa xaraam qofka madaxda ku ah inaad meel publiga ku caydo waa shay forbidden ah mamnuuc weeye waa ilaahay waa uu cambaareeyay arrintaasi waxa loo baahan yahay wax ka tabanaysa xafiiskiisa ugu tag meel kale emailkiisa ugu qor si khaas ah oo la hadal waxaad waxaasan ka tabanaynaa arinta halka iska hagaaji waxba khaldane duca qabe saasina dhahdaa aad u wanaagsan marka waxa weeye aad baad u mahadsantiin soo dhawaada dhammaan soo dhawaanaya Cabdiqani yarow iyo Umar Dawlad alla magan sharaawo caafi dhammaantiin asxaabta meel kasto naga daawanaysaan dawladnimadana deeqdo sharafteena iyo ciidadeena waxay ku jirtaa walaalayaal wadankeena dago oo israaco oo nabad noqdo intaas aan naga badan أستاذ أحمد كوسي صعو ما شاء الله ولكن على عبدي أدي هذا ما سنتهاي أرمى الدينية يومارت أرمى السياسات أرمى بالشدة بوان وتطابط ما شاء الله وحويا قف كستابة أدي هذا كسود وين ربي باكي سود واو ومغير أحمد علي أول مارت سود وادا راجع حسن أول وين سود وين نرشل قريب برامج كان وحويا برامج صوماليات Soomaalida loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel allaala meeshii adduunka joogto ayuu maaragtay ku socdaa cid gaar ah loo hadlo maayo dawlad gaar ah loo hadlo maayo gobol gaar ah loo hadlo maayo Soomaaliya loo hadlayo iyo dalkeeda inay difaacato dawladnimada ay ilaashato qabyaaladda in iska dayso qabyaaladdu waa waxa walaalayaal dawladda dumiyay
cabdiweli jeesta soo dhawow aad iyo aadaan ku soo dhaweynaa mas-uul sare axmed cali iyo raaga xasan iyo ruqya baakey umu khayr aad iyo aadaan isoo wada dhaweynaa gebigiin waxaa tihiin dad wada muhiima ilaahay maaragtay idin dhowro waxa weeyaan marka qodobka maanta ka hadlayna waa nabadda noo soo curatay oo noo soo iftiintay dalkayna soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho magaalada muqdisho loo arko inay naqatay maaragtay caasimadii soomaaliya oo soo ceshatay maaragtay doorka iyo ku lahayd caalamka saaka maasha allah waxaan akrinayay kooxa maaragtay kooxda xasarada caalamka oo soomaaliya kasoo maaragtay ka reebtay waxay ka reebtay wadamada qatarta waa laga reebay waxa kaloo haddana maaragtay aan akrinayay kooxda kaloo haddana maaragtay journal maaragtay kasoo baxay ingiriiska oo laga reebay dhinaca dowladaha qatarta uga jira in dhaqaalaha soomaaliya laga reebo oo maaragtay waxaan wadamada isleena hadda inay naga fiican yihiin anugu soomaaliyeed shacab ahaan u malayno ayaan ka fiican oon ka sarreynaa waxa hadda kenya darisaanahay inay dhinaca dhaqaalaha naga qatarsan tahay dhinaca problemka iyo maaragtay nolosha iyo naga qatarsan tahay maaragtay lasoo qoray hay-adaasuna waxay iyadu la taa ku masalaysan laakiin waxay qiyaasahay fiirisaa dalkaas waxa ka dhacay iyo dadkiisu siday nool yihiin iyo nidaamkaasaa la sameeyay marka walaalayaal soomaaliyeed anigu lambar 1 waxaan ka geli jirnay wixii ka horreeyay maaragtay 2013 wixii ka horreeyay lambar 1 wadanka ugu qatarsan lambar 1 wadanka ugu dhaqaalaha xun lambar 1 wadanka ugu maasuq badan lambar 1 wadanka carruurta ugu dhimasho badan tahay lambar 1 wadanka hooyada maaragtay hadday uu qaado ugu qatarsan tahay intaasaan ka soo geli jirnay hadda xoogaa waan soo soconnaa walaalayaal waan soo soconnaa masuqii dhowr wadana naga hormartay oo maaragtay aan ka sarreey aan uga fiicannahay dhinaca maaragtay transparency-ga iyo maaragtay corruption-ka uga fiicnaanay dhinaca amniga waxa waaye wadamo badan baa naga hooseeya Nigeria oo hadda u haysano wadan awood badan inay boqolkii maaragtay 80 iyo naga hooseyso Kenya darisna inay boqolkii 17 naga hooseyso in maaragtay wadamo badan Mali oo kale naga hooseeyo wadamo badan oo caalamka naga wada hooseeyo walaalayaal oo naga hooseeya dhinaca masuq dil iraado dhinaca maaragtay problemka iyo dhimashada hooyada dhallaanka dhinac wax badan baan maaragtay aan laga qatarsan yahay marka anagu waxa weeyaan inaan niyadayna gashano dalkaana inuu hagaagay inaan soconno horu soconno aqabada yaroo nahaysatana waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo qabiilka weeyaan qabiilka iyo maamul goboleedyada oo maamul goboleedyada dawladda dhexe lagu naafeynayo oo dawladaha dariska amba caalamka la xiriiraya dawladda dhexe siyaasadeed maarta farqaay shacabka Soomaaliyeed oo ku baraarugsaneen waa marka walaalayaal waa inaan ku baraarugno dawladahan dhexe waa inaan xoogeyno dawladdan hadda jirta oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo ra'iisul khayr waa in la dhinac maaragtay dhinac istaago si berri maaragtay haddii aadan siyaasadan iyo nidaamkan iyo kula xun tahay oo kula tahay dawladdan inay siyaasadii iyo nidaamkaad adigu rabtay aad iyo aadaan ku soo dhaweyn halkii Axmed Dhagax soo dhaw mas'uul sare aad iyo aadaan Xafsa FIFA soo wada dhawaada walaal Cabdikariin Nuur oo aad iyo aadaan soo wada dhaweyn walaalayaal marka waa inaan dawladda dhexe oo hadda jirta walaalayaal gebigan iyo dawlad noo noqoto waa inaan ku qanacnaa dawladda dhexe oo hadda jirta waa inaan dawlad inay noota ku qanacnaa local government-ka maamul goboleedkana waa inaan u aqoonsano dawladda hoose oo aan shaqo ku lahayn siyaasadda iyo amniga qaranka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay waxbarashada nidaamka waxbarashada maaragtay aan shaqo ku lahayn oo dastuurka dawladda dhexe siinay waa inaan shacabka ku nool gobol kasta Soomaaliyeed oo san ka yeelin hoggaanka maamul goboleedkaas inuu dawladda dhexe faraq qabsado oo ku naafay waan ognahay walaalayaal hadda maamul goboleed waxay ku dhawaaq maaragtay dhaqaaqayaan waan ognahay Cali Cabdullaahi Cusubli xilka markii laga qaaday wuxuu yiri aniga waxa maaragtay dawladda dhexe maaragtay xageena leega dushay waxaana leega maaragtay leega qoonsaday waxaan la safday Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya Bahrain iyo maaragtay waxaan la safday Masar anoo qadarka soo horjeeyo war shaqadaas yaa ku dira waa inay yireen dadku madaxdu yahay marka hadda marka asiga xilka waa laga qaado kuwa kale sidii asiga u shaqeeyana waa inaan laga ogolaanin shacabka meeshaas jooga mudanaasha baarlamaanka gobolada maaragtay iyo bulshada reerka ku nool goboladaas waa inay ogaadaan wuxuu ninkaanu samaynayo inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyay waa inay ogaadaan wuxuu samaynayo inuu wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ku sameeyay ee uu ku samaynayo qof kasta Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliyeed oo jecel qaran Soomaaliyeed inuu xoogaysto waa inayan ka yeelin dawlad goboleedyada inay dawladda dhexe qabsadaan hadduu qabsado
dawladda dhexe gobol kastaba waxa ugu jira wakiilo walaalayaal waxa soo doorateen golo sare waxa soo doorateen golo hoose wasiiraa laga magacaabo gobolkaas iyagaa ka wakiil gobol lagu dulmi karo dawladda dhexe ma jiro gobol lagu dulmi karo amba Jubbaland amba Puntland amba Galmudug amba Koonfur Galbeed amba Hiirshabelle amba Somaliland gobol lagu dulmi kara kamid ma waayo dawladdan waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo isu timid ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo isu timid marka inay gobol dad u joogo dulmiyaan cid ka yeelaysa ma jiro Somaliland oo xataa tiri annagu waa goosana ayaan hor istaag dhaqaalaheeda iyo nidaamkeeda iyo waxaan dawladda dhexe ku sameey karin waayo dawladda dhexe dad baa ugu jira waxa ugu jira intaas soo xildhibaano maartay 7 xildhibaan ku dhow waxa ugu jira golihii sare nuur shaamba aad iyo aad ku soo dhaweynaa halyeeyga Soomaaliyeed barnaamijyada iyo barnaamijyada waa la soconaa ilaahay ku dhowro sidaas kuwad insha Allah waana isla jaan qaadaynaa nuur shaambo aad iyo aad kugu mahadcelin maxamed علي سوى دوالة قبيل أنت الأجيد جميل مارتي جامع قدومين شرفت له قدومين من مقرن أدي هذا كوسود ويننا إن مركز دولة دحولها لنكها ضو فرق قبصة أديجو كويس عجو قفكو هيستا هو أديجا هالضو محمد عبد الله فرماجو ما بالقبلات كملح وينها دول القبلات كدو كله ومحمد عبد الله فرماجو فرق قبصة أديجو كويستا يدي دمك شقدات ماهن شقدات وين اللوكال جوفرمنت كان كشقيسو وإن النظام كدولة هوسي نظام كاسي واحد ولما اسمه دقمة قبل كقطع إنه أسوق هندات كويس ما دقمة كستو يدولة كستو إن اسم معمول يسو دولة الدحنة وحكود درسنا يسو دولة قبلات كنا وحكود درسنا يسو أضد وتجا وكيل ما عرف شرع الصومال تقرأيه ما هنا إنه كذا ضعش إن أدو أنت بعد عن دقائق كريم دولة الدحنة بقى وجل دقمة كستو مركب وكيل كل هذا دولة الدحنة ننكسب وكيل أوجود وسيرة وكيل بقى وجرا xildhibaanada wakiil baa ugu jira aqalka sare wakiil baa ugu jira saraakiisha dawladda maartay oo qaranka wakiil baa ugu jira ku qanac marka wakiilada astugu yow ka dhaadhicin inuu astugu kaliya rag yahay aad iyo aadan ku soo dhaweeyna walaalkay Cali Cabdi ku soo dhaw insha Allah waxaan noo taabataa insha Allah nidaamka cadawga nagu hareeraysan iyo wuxuu naga damacsan yahay iyo caalamku hadda sidoo noo arko insha Allah maadaama nin aad wax u akhriya tahay insha Allah waa ku soo dhaweynaa soo dhaw walaalkay noona sheel garay barnaamij أحمد أد بدو ما سنتهاي برنامج كورت نوشر جريا دمانتين وحن كشقينينه ووح عنك يا دين كبنويا لو معهن وح عنك بس مركا أد بدو ما سنتين رنتي صوماليا وي بسلاطي وحن سومر كرني وان سومرني عاند تدبض ضال لقبتابي صومالي دو كمه ماذا وحن أباهن هاي ولا ليال وحن نجح اللابي وح إلهي نقول تجابنا إيه هيد وخلط أنقلني أو إلهي نقول تجابنا إيه markaan usoo laabto ustaad su'aashaadii weydiisay dawladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba bal waxa ay naga damacsan yihiin iyo cadawga aan leenahay midka uu yahay horta cadawga ugu horeeyo aan leenahay waa shaydaan marka ugu horeyso oo shaydaanka wuxuu doonayaa asagu wuxuu baadiyeeyo oo hadhow naarta uu ku aruuriyo oo wuxuu ku leeyahay kuwa dariska atiin dib oo dawladda ka soo horjooso oo wixii wanaagsan oo dhan ka hor imow si maartay uu xisbigiisa ku noqdo oo waxa weey laba xisbi baa jirto xisbiga saxda ah iyo xisbiga khaldan oo shaydaanka raacay horta shaydaan way marka ugu horeyso waxa cadawgeena marka labaad dawlad kasto dunida ku taalo cadawgeeda koobaad waa dawladda dariska la Mareykanka waxaad ogtahay in cadawga uu arkay Mexico oo la darbi dheer baan dhisaya waxyaabihii Trump uu ku galay ololaha ujeedadana waxa weeye مخدرات يا وحيابها قربي ودن كيسان لغا سو غليا waa meesha wadanka waa dariskiisa marka sababtana waxa weeye dawlad kaste ama waxay isku haystaan dhulka ama waxay isku haystaan waxyaabo kale oo amni darro ah ama wax un baa ka dhaxaya soo jireena annaga marka waa maxay cadawgeena dadku waxa la rabaa cadawgooda inay ogaadaan cidda uu yahay oo markii la weydiiyo cadawgaada yaa weeyo waa inaad maaragtay aad ku soo boodi karto Soomaalida waxa weeye waagi hore hadda waa laga yara gudbayaa waagi hore waxa dhici jirtay Soomaalidu inta badan xoolahay kala dhici jireen xoolaha iyo gabdhaha iyo waxyaabahaas aad u kala dhici jireen sababtana waxa weeye ceelka biyaha ku diriri jireen way isleen jireen xoolahay kala dhici jireen marka canuga markuu dhasho waxa lagu programin jiray reehebel ma taqaanaa qoladan noo dhow oo hadda meel 20 kilomitir degan ma taqaanaa waa kuwii awowgaana dilay geelaadina dhacay lo-odina naga dhacay ceelka biyaha nooga diiday marka canugaas wuxuu qaadayaa uqdad ah ninka hebel la yiraahdo
baan uqdad u haya aniga sababtoo ah waxaa weeye awowgay buu dilay awowgay nin haddii awowgay dilayna wax ilaahay abuurtoo naga dhexeeya male asagana haddii suu ku dili lahaa yaa markaasi marka lamaba tusinba cadowgooda meesha uu jiro waxaa la tusay cadowga lookalka in adeerkii iyo walaalkii iyo ina habreeddii iyo kan ay qaraabada ahaayeen iyo tolkiisibaaba la tuso waxaa la yidhi kanaa cadow noo cadow kaleba melid adiga haddaba cadowgu kaas maahan cadowgu waxaa weeye waa midka caalamiga ah oo international globaliga ah iyo midka deriska kula ah marka dowladaha cadowga noo ah way iska caddahay inta badan laba dowladood oo annaga naga badan dhulna naga haystaa nagu hareeraysan oo midna 100 milyan ay too Ethiopia midna 50 milyan ay sii cagacageynayso oo 30 sano annaga dib aan u burburnay ayagu dhismayeen oo qarni ahaanna naga weyn markii si leego Ethiopia kale qarni ahaan naga weyn marka waxa loo baahan yahay sharaf iyo cizaan leen marka annaga sharaftii iyo cizadan leen maxay tahay dowlad baana soo martay xoog leh oo geeska Afrika loo yaqaan dowladii awood lahayd waxa Axmedow ma rumaysanaysaa in ciidamada Soomaaliya nabadgeliyo ama peacekeepers loo geen jiray Israel oo loo geen jiray Palestine oo loo geen jiray South Africa oo meel kaste oo disaster iyo musiibo ay ka jirto ama ha noqoto mid bila aadanimo ama ha noqoto colaad la geen jiray oo ay ahaayeen frontline-ka ciidamada ugu horeeya dunida lagu faano iyo kuwa ugu xoog badan annagoo 10 milyan markaas ama ka sii yar baan heerkaas gaarna haddoon ka badannahay oon ka cilmi badannahay oon ka dhaqaale badannahay oon ka caqli badannahay oo wax walba waan gaari karnaa we can do everything laakiin waxa loo baahan yahay marka ugu horeysa annaga gacanta inaan isqabsano anigu fikir baan qabaa fikirkan qaba waxaa weeye awoodeennaba yaana horta marka hore annaga is xallino markaan is xallino annaga solution gurigeena dhexdiisa aan xallino baan walaalle cadow iska difaaci karnaa oon dad la xisaabtami karnaa oo wax walba aan samayn karnaa laakiin annagii waa mashquulsan oo waxaa weeye dhibaato oo annagii dhexdeenna jaajuusyaal iyo balaayo dowladda u kala shaqaynayso iyo ay nagu dhex jiraan wax horumaroon gaarayna ma jirto marka dowladaha way iska caddahay Ethiopia cadowgeena koobaad ah number 1 ogaada qof kasto aqli loo dhageysanayo cadowga shaydaanka ka sokow cadowga bilaadankood leedahay waa Ethiopia sababtan saawlay maxay sababtan saawlay way iska caddahay way og yihiin dad badan oo kuwii dadkii naga waaweynaa oo wadankan soo xukumi jiray iyo kuwa hadda joogaba way og yihiin markii laga reebo koox yar oo laga yaabo in caada qaatel yihiin maanta waxa jira ay fiirnayaan dhuuxa yarkoo maanta ay dhuuqayaan bay fiirnayaan ma fiirnayaan marjaca dambe Ethiopia marka waa dhowr xaalo waxyaabaha cadowga ay noogu tahay kow Soomaaliya marbay waxay noqotay dawlad xoog badan oo dunida ka qaylisiisay oo la yaabay si marka dawlad kale oo xoog badan oo tii la mid aysan u dhalanin baa go'aan waxay ku gaartay Soomaaliya inaysan dawladba ka dhalaninba kol ay generaal xuno hebel gabro oo saddex alif laa inoo soo diraan iyo waa haddaan ka yeelno insha Allah meeshaas noo joogto waa haddaan anku ka yeelnay ku guuleysanaysaa walaalkay Cali Cabdi khayr Allah siiyo nin aad wax u akhriya oo maartay haaya warbixin dheer oo badan haaya oo Soomaalida waxa ku jihaysan iyo sida Soomaalida cadawgeedu Soomaartay lugaha u haay marka insha Allah aad iyo aad aan soo dhaweynaa gabigiinba qatarada iyo maartay qadar iyo nuur iyo Ibrahim iyo Maxamed gabigiinba soo dhawaada Jamila maartay midnimo Ilaahay ku dhowro midnimo qaran qof kasto Soomaaliyeed u hadlaysa qof kasto Soomaaliyeed qof xaqeeda lagu duudsiinayo ma jirto Yusuf soo dhawaaw qof xaqeeda lagu duudsiinayo ma jirto حقاقة مارتي واحد وجودي كرتا مدنمو Soomaali inay midowdo ayay cadawgeeda ugu guuleysan kartaa cadawga shaydaanka oo doonaya inuu naarta nagu guro haddii laga soo reebo bini'aadmiga cadawga nool oo leenahay waa Ethiopia qoftii aan u qaadana waxay jartay maaragtay nolosheeda iyo sharafkeeda iyo jiritaankeeda dhamay ay ku aast iyaduna waxay u haysataa cadawga koobaad ilaa inuu Soomaaliya yahay marka cadawgaaga hadaad u jiifato oodan iska difaacina meesha u socdo waad garanaysaa cadawgaaga meesha u socdo waxa weeyaan inuu ka taqalluso waa inuu ka taqalluso waxa jirta hadda ka hor warbixin aan dhageystay nidaam aqoon isweydaarsiyo kaniisada ugu weyn Ethiopia lagu dhigay maaragtay 800 waxay ku heshiiyeen in Soomaalida la kirishtimeeyo maaragtay la soo dhigay in la kirishtaan laga dhigin diintooda laga baabashay heshiiskaas maaragtay lagu gaaray
sideetameedii waay soomaalida in diintoodana laga baabi'iyo oo laga dhigo dadan badiin lahayn oo maartay xoolaa haddii kirishtaan laga dhigo waxay noqonayaan dad iyaga qowmiyadan u xisaabtamay annayan u helaynin hadhowto taageero iyo kula dagaalamaan waxay yiraahdeen marka diintooda laga baabasho kirishtaan ayaa laga dhigin maxaa laga dhigaa marka waxa laga dhigaa xoolo taagan oo wuxuu yaabaan lahayn marka kooyo ku soo baxda nin noocaas kaniisadaha iyo dawladda dhexe Itoobiya waa isku xireen dawladda dhexe Itoobiya waxay ka shaqo qaadataa oo ku socotaa barnaamijyada iyo nolosha nidaamkeeda ku salaysan kaniisadda Katooligay maartay taas ugu xirantay marka nidaamkaas kugu wajahan aduguna in istaakad wax nalka nuurka Soomaali weyn soo dhawow noo sheel garay barnaamijka Axmed Cabdi waa idin soo wada gargarowno soo asugu diyaar noogu yahay waan diyaar u noqon haddaan annagu midowno haddii aqoon isweydaarsadkii iyo nidaamkii cilmi baariskii Soomaalida ku wajiilayeen la yiri war kristaan ha laga dhigo maya kristaan in laga dhigo ma tooda ha laga baabasho meel dhexe la istaajiyo maxaa saas loo leeyahay Soomaalida waa qowmiyad aad u badan ana ishaysata oo ilaa Nairobi maartay wax saas u jirin ilaa maartay harar iyo dhulkaas degan ilaa inta dhulkii ku fadhido Soomaalida aragteen gumaysiga daba qayb marka waxa la yiri yaan laga dhigin kristaan yuhuudna yaan laga dhigin ee xoolo taagan laga dhigo ninkan marka Itoobiya waa walaalkan Itoobiya waan jecelna Itoobiya waa saas kale inuu xoolo ka dhigo doonaya marka xoolo an diinna lahayn waxa uu leeyahay aan jirin waxaan arkaynaa social media la soo dhigay Thailand nin dhintay waxa dhaqankoodu qabaa in naagtiisa lala duugo inuu waa noosha adduunka waxa fiirsatay dhowr milyan oo qof fiirsatay alla soo dhigay social media la soo geliyay ninkii baa dhintay naagtiba la dhigaya geed baa korka laga saaraya ninkii meedka korka laga saaraya lagu duuga naagtina waa noosha diintooda qabta dadana uu yiri diinta saas annaga marka diintan islaamka inay inaga baabashaan iyo naga dhigaan noocaas ninka naagtiisa lala duugayo nooca kaadida looda caabuda nooca ubaxyada iyo nidaamka iska caabuda sidiiba maartay Sofiyeetigii dalkii kood maartay ana Yugoslaviya dhulkaas iyo nidaamkii laga dhigay hadday nala joogan wadankan la degan yihiin iyagoo diinba malihi kula waxayna boqolkiiba boqol muslim ay haajir Abu Hurayra ka soo jeed boqolkiiba boqol muslim ay haajir diintoodii laga baabashay kristaan laga ma dhigin waxa laga dhigay dad iska nool oo xoolo waayo hadduu kristaan ka dhigo ninkan kristaan waxa way adduunka kristaanka hadda xoog ku laho nidaamkaas uu wajahayo wuxuu ku leeyahay isku mid baatiino adigana lagu taakulma adiga la tago wuxuu rabaa inuu weligii ku saarado marka qowmiyadaha xaarada iyo tikreedu inuu weliga kor ka saaro adduunkana taageero u hesho Itoobiya hadda miisaaniyada ugu weyn oo dalkeeda inta canshuurta ka miisaaniyada ugu weyn inta soo bilyan baa lagu kala sanad inta soo bilyan maxaa lagu kaba waxa lagu kaba Soomaalida si iduleeyay haddaan midowno laakiin insha Allah waa ka guuleysanayna walaalayaal dawladnimada inaan taageero qabyaaladana aan iska dayno intaasaan ugu guuleysanaa adawaan qabyaaladana aan iska dayno dawladnimada aan taageerno haddii aan dawladnimada taageerno adow ka guuleysanay waa dawladdu nidaam sharciyo iyo awood ciidan iyo nidaam iyo samaysa adduunkuna sidiisa wax waaye ma waa isku wada xiran yahay dawlad kasaba dawlad ay saaxiib la tahay dawlad kasaba dawlad ay saaxiib la tahay nidaamka maartay globalka adduunka jira nidaamku wuxuu ku kala yahay group waa haddaadan dawlad lahayn groupka ku jirto kala sheekay marka adig haddaadan dawlad lahayn groupka ka mid tahay adigu kala la imo waa Falastiin inta soo boqol oo kun oo diyaarada in soo kicisay saas ugu hoobinaysa Israa'iil cid ka hadlaysana male waayo adigu meelad ka tirsantaa ma jirto meelad ka tirsantahay ma ba jirto waa ruingo waa aragteen god dheer in la qodaad cagaf saakay in la qoday baa in sas loo dhiga lagu aasay cid ay ka tirsantahay ma jirto haddaadan cid ka tirsanayn noocaas noqonaysa laakiin marka dawlad leedahay elitariya mesela soo qaado elitariya wadanka elitariya waa 6 milyan 6 milyan idoo taa adduunka midowga Afrika amartay aanu qabateen ku soo riday igaada laga saaray maartay waxa laga saaray maartay United Nations wax cod ku lahayn una qabateen baa adduunka dhan saaray haddana dawladooda iyo nidaamkeedu waa dhisnay Itoobiya 100 milyan ku dhaway ka haysata dhul magaalada dhamay ka haysata asa Itoobiya mar laad waa midnimada
تدونتو أو الدنيا كلها سكوت تجي واحد قد ما سمعي وحبا كقادي واحد أنا وادرك أنا وادرك هذا كان مدايسنين ولا لا يلوحن هاي وحن كواسن هاي قدان يرى جيدا صارنا كواسنا مركا ولا لا يلوح إن المدونه أو قبيلة إسكدين ولا لا يل قبيلة إسكدينه أن مدونه هدي أن مدونه أنك أقولي سنين هدي أن مدونه أنك أقولي سنين عدنا قولي سكرت إلهي أن توقف تلا صارنا توكلنا خلاف نفتي سأسجع عذاب ولا لا خلاف نفتي ونوع من العذاب marka walaalkay cali cabdi baan ku soo dhaweynaa sida qabyaalada looga bixi karo oo Soomaalidan qolo u kala taagan oo mar kastaba maartay qabiil u musturana sida looga bixi ku soo bilaabatay waan ba ognahay oo odayaashan iyo heer guuraagii nidaamkii deegaanada iyo waxaas ka uunba isaga soo bilaabatay hadda asigan maartay la joogo adduunka maartay ay soo horumaray oo nidaamkii adduunka dawladnimada jeestay sida looga bixi karo ولكن على عبد واقع بحي لكن أنا سيقول إن شاء الله بربلان بين على الإنترنت كايسال يا ولا ليال إن نكبح نقب يالد أون دولنا وجيسن هرت مركا أوجه الرئيسة سمي طولك الصوماليات أتيجي واحد كلها هاي هل كتكد جنته جروجا كوجيالو بيرو كاجا دسنت هاي عيلكو كاجا قضية قفتي مركز كوتي ما نمرتها كوجنا قطوع كل عبد عيل كاجا بيزة قصد غيصو gurugaaga habeenkaas ku martigeli laakiin gurugaaga gadaashiisa iyo duurkaasa qabiilkayga leh ugu diidin cid doonta bay iska degto baraaka ka qoto noloshiisa ka sameeyay waxaan hadda arkaynay oo la sameeyo Soomaaliyiin timid ayaa xal loo arkay qabiiladii isku dhagan ceel afeen iyo nidaamkaas in la yiri ceelna laga maqodi karo magaalada laga dhansi karo intaas oo 100 kilomitir dad baa xal u arkay waayo dadka baa isays ana ka iskale أنا أساسا وأنا كي بقول كاتكيلو سعيد مدقن واسك الصعيد هقف هذا مرتو هذا للدجامين تذكر دحي باهي أو نقول منايا مركب واحد لا يريد كي نبى يصوب سكوت دقن ماشي اللي يرادو عيرة قابا كسكون يكسود دول أما حاجة كسود دول وحو كل عيلة فين أنت قاعد على وحبك نسيب كده ورحان دان كتسمع يديك محي فوق منيسة واحد بدك أنت هالكاسات دقن تاي عيلك يقول واجي ما زاد بيكعب وسا أنا أنت عيلك قط والنوع واحد تاس إن جوجي نورت مرة إن جوجينو أنا كا ما هو كسوق وعن أركي جري من ما يمل دوري مدو بيرك فلناي ننكر أن مدو له فلم يصير بيرك وربحات كلها هذا قبيل كائن أسكلاي قبيل كائن أي أسكلاي على عبد هذا اللي جالسين يسوق واتكبر هذا لكن إن شاء الله كسرنا مركز تسوين أسكدين كويلو قف ماشي راشوا كابحاي بيرت أديك أسكلاي هاي أو أدقنت هاي يقولوا أدقنت ما بقولك متيرو إسكوريجا هي بيرتاد ما بتسبي كرتيد مارتي شن أكتر أما طبعا أكتر كذا ما بسميه كرتيد أنتاس أدو كدق أنتاس كدق لكن هداتي رب بقول كيلومتراش مارتن ديدا عنيقة أصلا ضد سوماليا نقل الدقين ضد سوماليا دو كنا ولا نساء ينجرين واجبك إلا هذا ما هيستوى لنا نسكت الجنة مركب قبيلة ماشى صرتها على قبل الله إنه نلقى الصومالي عندنا اللي دي نلقى الصوماليين إنه علّ اللي دي قبل هذا دحين ماشي اللي يرادوا مارتي أن قبل كان مدو يقل قدوم كده عمل بحيسة بقولال قفا كل ما تيب براجن الملك قط أبي أسكوش برا براك تسوح الجيا بقف كتصور مرتو أمر بيكعبله براكتين ولا دوبي أنت صوب بقولنا ويكون ما تيب مارتي لا بد كون يلحدي يلا بد كون يشنتي معاه متاسان وتاجناني أنا مركب أباياشين ما هيسن بوبهان إيه مدافع لنا لسكو قراعي ورن إيه في اللارا إيه لقو دقال دمو بلا الصعدة أهدي بدأت لما نقف هالقف آدم جرس هذا ندتكي بوبا إيه مارت مدافع تانجين لقطا دتك ما يلا الله ينايا مركب وإنا كحر حلي كان أسيق وإنا لقبسن ولا لا هذا النوبلير هيستان قبيل كان كله أو تسوق يتدبسن كي مارت كو قراعي تانجي كو قراعي هذا النوبلير سان تراكو دفلاي ما هذا مواعظ لهذا الشباب قلادان الشياطين أو مدة نفط أوكند هذا ينقل هيستان عمره كل فلاهي هرجيسوا كل فلاهي مالي كدور العين ما يسوين هيس أو نن ينفتي تكسوه رسول ودنيسي إلا كأجلنا أو إسكو كقرح حو دورار نقل لنا ضوء هيس أو بمك أتمك أدونك وين هيسو سومالي ده هالمرة يكون يفتور لي هاي وكاسو أوكي نقطع عرض مركا أنت سنة وحنا جالسي ولا الكلا قيب سنانت إيه قبيلة قبيلة واحد أركيسا بابور دان أو إن لا سومينيو
oo maaragtay looriya intaas in la soo saaro oo wax kastaba la soo saaro iyadoo hotel mahaas ku yaalla iyadoon dadkan kale waxba ayaan agteeda ka ahayn baa la qarxinaya wuxuu leeyahay marka nidaamkan waa okayo kii diinta qabta waayaba adna waa ka dhageysay asoo cawada guriga ku jooga bari kula jooga asaa canugaagu aadaa gabadhaadu aadaa wiilkaagu aadaa hadduu islaantaana haddaan odaga maaragtay asagoo suuqa ka aada u kaa qarxina islaantii suuqa kaa soo balaayadaas kaaga dhacaysa nuclear hadduu haysto waa ku dhifalaa dadku haddii akhlaaqu ka dhunto oo diintu ka dhunto oo maaragtay nidaamkooda meeshaas tago halkaasaa u dambaysa walaalayaal intan uga badbaadi karna horta marka hore qabyaalada jooji dhulka soomaaliya cidna ha u diidin soomaali kula ah cid ha u diidin deriskaaba ku fiicnaa lehed waxaad arkaysaa hal qof oo degan meel bay degan tahay walaalayaal hal meelay degan tahay 20 kilomitir qof uga ma sokayso ama waaba diidaba cid kale ma soo degi karto marka arrintaas waa inaan joojino walaalayaal Soomaali waa inaan joojino arrintaas dhulka Soomaaliyeed beer ka samayso deg noloshaada ka samayso laakiin dadka ha u diidin halkaas deg ceel ka qodo baraagtada cirku guddo 100 mitir oo square ka samaysanaysa marka intaas waa inaan joojino dawladnimadan aan qaadano qabiilkaagu u aqoonso maxaarimtaada gabadh aadan guursan karin gabadh wiilkayaan guursan karin habaryarta maarta eedada walaxa adiga ka farcama nidaamkaas u aqoonso wax kale yoba ku qaban haddaan dawladda dhinac istaagnaano waxba meesha ka baxaysa ashuurin qabiilkan ayaa meesha ka baxaya oo waxaan naqanaynaa hadda wadankan aan ku joogo qabiil waxba ka bixin maayo haddaad u dhib geysato dawladda isla boodboodaysa qofti dhibkaas ka diida ashuurin namad iyo nidaamkaas iyo waxaas yahaydad iyo waxaas isla boodboodaya laakiin in qabiilkayga boqol halaad dad bixinayso dawladda ka bixinaysa dawladana kaaga wanaag marka qabyaaladaan iska joojin qabiilku waa caadi oo maarta ilaahay quraankiisa ku sheegay laakiin qabyaalada dhibaatada waa qabyaalada marka qabyaaladaan joojin walaalayaal aad iyo aadan idin soo dhaweynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo maartay adduunka joogta walaalayaal waxaan idinka codsanayaa marka ugu horeysa qabyaalada in iska deeyo qof kasta oo Soomaali kale walaalaha ka dhigan aad iyo aadan ku soo dhaweynaa Jul Umar Tawri soo dhawo walaalkay Maxamed Ali maarta Usmaan Umar gabigiina oo soo wada dhawaada noo sheel garay barnaamijka Ilaahay dhowro barnaamijkan waa barnaamij Soomaaliyeed waa barnaamij maartay dadka Soomaaliyeed oo dhan loogu talagalay ما أن برنامج قبل قارة الله هاللايو ما أن برنامج قبل قارة الله هاللايو حسب قارة الله هاللايو من ما قرن أمضى الصومالية دور طن بيؤتاجنته أمضى الصومالية أو طن بيؤتاجنته أدوك وكصوب بيري كرتا حوين بات كنا كرتا منبر بات كنا كرتا قوله هذا فلينتات كصوب بيري كرتا قوله هذا جدّي قصرات كصوب بيري كرتا جدّيال بدن بيلالا عند دونات كنا غنيسة وأكو كسود هذا دون تحت قدومية دو كنا قط وإن أمد الصوماليات مدينه دولة النمط الصوماليات أود ديارته إلهي بقى أول لكن دولة النمط الصوماليات أو النجا وكيلة أو نجا وكيلة نظام كحرير كعالم ك يوجدها أرمها بلشها مرة نروح على سواء أنا سميسنا ولا ليه يا نوع مدان هذا جت محمد عبد الله فرماجه وجامناي وح غلطات كهذا قفت إذا حلك يستام محكمة لقى وعكرة غلطات كدعاء قفت إذا حلك تكتل ورا عكرة محكمة النظام لقى سمي كرة قلادات كدعاء مركز أساس النظام يدقن لو مارتي إن لو سمي كرا أو لو دبقلي كرا لكن إن اللي يرادو نين مارتي إن الصومالي مواد الصوماليين دولة قلاد كجشة دولة دن هلا تفترو سكر عشان نين دولة دن بينو تفترد دونايو الناس أصعب بس وحواي وحشقينا ما هو لال وان أجانا كوب يستجاشن كي ولا ليال dadkaynu cagabaralka iyo baahida iyo nidaamka iyo dhibaatadii ku dhacday iyo dawlad la'aantii oo qoftay ka xoog badan tahay dilaysa qoftay ka xoog badan tahay dhacaysa dib inaan ugu noqono magaalada Muqdisho 29 say eed waa ogtiin haddana say tahay waa aragteen 27 kila wadooyinkii la jajabinay hadda dadka Soomaaliyeed lacagtoodii lagu dhiso waayo lacagtaas hadda la galshay oo wadada Makka Mukarrama iyo wadada wadnaha iyo wadada Sodonka iyo hadda maanta General Dawlad dhagax dhigayo wuxuu rabaa lacagtaas hadda adiga laga qaado oo canshuurta laga qaado oo nidaamkaas lagu dhiso waayo haddana dib dambe u baabasho rabaa ninkan oo dawladlaanta abaabulay ma ka yeelaysaa marka ma ka yeelay yow ka dhaadhicin Soomaaliyo dhan waxaan ugu baaqaa dawladnimada inay taageer
maamul goboleedyada on kuwa ku nool oo maarta dawladda maamul goboleedyada hoos joogaawna waa inayan ka dhagaysan inuu dawladda dhexe farqa ku dhigaa dawladda dhexe wakiilaa ku jooga puntland somaliland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland baraandir meelan wakiil u joogin dawladda dhexe kuma jiro gobol lagu dulmi karaa ka mid maaha gobol laga dulmi karaa oo gobol hebela wixii dhamay la siiyaa dhihi karaa ma jiro taas ogaada waxay ku salaysnaanaysaa nidaamkaas iyo xudxudashadaas iyo nidaamkaas hay'adaha iyo canshuurtaada iyo sida kheyraadkaaga oo soo baxday ay maartay ay arrintaadu ku salaysnaanaysaa laakiin madaxweyne sidaba hadda gaas sameeyey sidaba hadda siiraayo sameeyey sida cali cabdullaahi cusable uga baxa meesha waa inaan qof laga yiri sida cali cabdullaahi cusable looga saaro waa in looga saaro nin kasta oo dawladda dhexe qabsada nin kasta oo dawladda dhexe qabsada waa in laga saaro meesha waayo qoftu haystaa waa adiga hadduu dawladda dhexe naafaynayo adigu ku naafayo waaya adigana ma ogid waa u sabcinaysaa marka waa u sabcinaysaa hadda gaas wuxuu yiri madaxweyne gaas wuxuu yiri maalinkii isu baxayay maalinkii ka horreeyay wuxuu soo saaray laba warqadood soo hataa af Soomaali ka mid maahan carabi iyo ingiriisi uu ku soo saaray war saxaafadeed oo yiri xiriirkan u jara qadar dawladda Soomaaliyeed waa inay u jarto waayo wiro amar u bisiyaba sacuudi iyo nidaamkaasi dawladda qadarka soo jeedana raacsana maalin ka dambeeyay boosatadii uu ka duulo asoo sacuudi arabiya aad hay ma qarannimada Soomaaliyeed ay taas u hiilinaysaa masajabay ku tahay waa inay iswad kuwa garowe jooga iyo kuwa qardho jooga kuwa boosaaso jooga iyo kuwa gaalkacyo jooga meel kasta kuwa jooga dhamo cadow ku yahay waayo waan ogaana dawlad dhaxal la'aanteed inaan sharaf jirin مثلا waxaan idinku soo qaadaa 74 gobolada waqooyiga iyo gobolada dhexe dhibaatadii ka dhacday aan idinku soo qabtay cid kastaba waa la dejiyay gurigeedii irideeda deerad in lagu dejiyo la soo qaado asaasab laalay kuntu warray iyo maarta baraawe dhulka barwaqadaha la geeyay kii kalluumaysi baa la geeyay hadda abaarta hadda dhacday oo ilaa hadda qaarkeed taagan yahay cid wax ka qaban karta ma aragteen dadka dhamay way baabeen xooloor way baabeen dadkii baahi baa laysay way qaxeen waxba ma haystaan maamul goboleedka ugu xoog dawladda ugu xoog badan hadda gobolada ka dhisan waa dawladda Soomaaliland hal degmo xataa oo kaligeeda xabad kama qaban karto si doonta mana yeeleen oo aruusheen 10 milyan ay aruusheen maarta xilligii iyo maarta bishii May ee sanadkan soo socda sanadkan hadda la joogo 10 milyan degmo xataa xabad kama qaban boqolaal bilyan loo baahan yahay ma samay karaan waayo ka baashitigaas ma baleba dawlad dhexe iyo nidaamkaas shaqadaas qaban kara walaalaha dawladda dhaxan taageer dawladda dhexe hal garab istaago midnimadana hal lagu dadaalo qoftu haday midnimada diido ogaaw waxay u socotaa jab shantaas farood iyo tuulkaas hada saas isugu dhajiso cid jabi kartaa male kan hada taagta laakiin anu 10 jir ka jabi karo 10 jir baa ka jabi rafarta marka walaalayaal aad iyo aad aan ugu xumahay wiilkii ila dadina cali cabdi waa maartay qadka ka xumaaday waa ka baxay laakiin insha Allah barnaamijkan waa barnaamij joogta midnimo qaran haddaan ka baxo qof kala soo galeys oo midnimo qaran hadday ka baxdo qof kala soo galeys way isdaarantaa 24 saac midnimo qaran 24 saac way isdaarantahay waayo Soomaalida oraxda uma dhacdoba hala Australia jooga markii aanu ka noo dhacda ay u soo baxaysaa hala Mareykanka jooga markii Australia u soo baxaysaa nidaamka hala Afrika jooga markaan aanu ku soo jeedno jiifa adduunka saas baan wada baahsanaa midnimo qaran daana waxaan idin dardaarmaynaa inaad gebigiiba midnimo qaran wada naqatiin oo ku soo biirtiin marka walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa dalkayna dawladnimadiisa waa inaan taageer xaawadani aad iyo aadaan ku soo dhaweynaa walaashay soo dhawaaw maartay dulmidiid waa in dulmiga la diidaa weligaan dulmi ogolaamayn noo sheel garee barnaamijka insha Allah midnimo qaran hadaan aan ku gadaalimayn dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaan u doodno dad ba maarta hadda hoos ku soo qoraya dawladda war dawlad ka soo timaadaan la koobsanayn aniga shakhsiyan midnimo qaran hadaan ahay ciyaalkayga ku tarbiyo midnimadaas iga sii dhaxlaan rabaa ilaa dawlad jirto dawlad kale weligeed u sii jirto dadku saas u mideebaan wadankan aan joogno xisbi boqolaal sano jira arkaysa
oo aan xataa xisbi siyaasad ahayn nidaamkaas dadka caawiya nidaamkaas dadka midnimadood ee nidaamkaas iyo waxaas uu ka shaqeeya asaad arkaysaa uu shaqeynaya bay dadku dhaqaale hore ku bixinayaan asay dadkay maaragtay qoftii xanuunsan ay caawinayaan qoftii saasay caawinayaan qoftii lawyer u baahan u qabanayaan qoftii maaragtay guriga saasay ku caawinayaan annaguna ko maaragtay ku qarxina maayo kala dhexna ka soo bixin maayo marka waa inaan joojino arrintaas waa inaan joojino waan ku samayno war dadka Soomaaliyeed waa inay naqdaan dad faham iyo wax soo saar leh oo war maanta ninkan wuxuu kugu sameynay xiigin horta hadduu qabiilkaaga in ku abaablo isku leeyahay dawladda aan dumino ma ka yeelay birina waad arkaysaa 90koodii wixii nagu dhacay ilaa maartay 2000 na haysaad arkaysaa baad arkaysaa adduunka kula yaabay adduunka website kasta dad furto Soomaali feereero shabaqiin oo baahidish iyo Soomaali dhika socdo la roora oo baad arkaysaa marka inta soo dhanba waa in la joojiyo walaalayaal ninkan qabiilaystaha amba hogaamiye kooxadkan gobolka haysta ka yeelin inuu dawladda dhexe disho nabadoon Ibrahim soo dhaw walaalkay colaad iyo wax walbaba waa inay joojino dawladda Soomaaliyeed hadda middan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo la shaqay haday siyaasadeer kula xuntahay nidaam kale oo af maartay 2020 kula tartan la imo 2020ka siyaasadda adigu maartay fulin hadii hadda nidaamkaada kula xun yahay middaas adigu maartay u hilgan xamdi cabdalle soo dhawa walaashay aad baan idin soo wada dhameynaa gabigiin iyo dulmidiid iyo maxamed cabdalle moodi abti soo dhawow walaalkay maxamuud abti maxamuud soo dhawow walaalkay maxamuud adna soo dhawow abti aadan ku soo dhaweynaya barnaamijka marka barnaamij Soomaaliyeed way adiga iskale iyada iskale qof kasta iskale Soomaalida iskale marka waxaan noo ballama in horta qabiilkiisa joojino qabiilka maxaan ku joojin karnaa qabiilkaaga u aqoonso kaliya maxaarimtaada iyo walaalaha iyo waxay dhaleen iyo qabiilta iyo nidaamkaas u aqoonso waxba kale ku qaban dhulka Soomaaliyeed cidna u diidin gurigaaga adigu allaada 100 mitir isku weera iyo beerta raashinka baxay iyo ceelka biyaha ka cabaysa baad leedahay qofti kale xagga ka qodato ha ka samaysan darisaad beelay nolol fiican baad helaysaa laakiin hadaa tira eeriyadan waxba laga samayn maayo waa aqliyan shaqeynay walaalayaal hadda meesha lagu cadfisbay marka wadanka socon meel duuraba male meel kasta qofaad degan cidaad degan saasad degan nidaamka beertayga ka sameeyay looda ilaa u joogo xeer dawladdaas uun bayna canshuur siinaysa nidaamkaas ma cid kale xadbaan u shameeyna kula ma jirto shirkada daato nidaamkan iyo geedan ka warso geedaas nidaamkaas sameeysan shirkadaas baa iskala meeshan laakiin qabiil hebela iskala gabi gash ma waxba kala ka sameey waxba laga sameyn maayo Soomaalidu way ku baaba'aysaa walaalayaal way ku baaba'aysaa waxaad arkaysaa qabiilkii baaba ilmi lagu barbaarinaya odagii ku yimid wuxuu ku leeyahay horta yaati waa cid ma ciddan waa Soomaali hadii la yiraahdo taasuu ka yeeli maayo Soomaaliya waa badan tahay ka tiino inta boolisu taagay waxaas warmaan iska diin walaalayaal waa inaan dhahno Soomaali baana wadankan hadaa timaado Germany kala loo jooga qofkan daa tiriyata German baa ay ku leedahay hadii wadanka la soo wadankeedii ku sheegaysa ma qabiil qof ku sheegaysa arkimi aniga deyntiiga qof ka dambeeya taadii tira Soomaaliya aan haleey ma qabiil ma ya wabal walaah dad qabiil sheeg marka walaalayaal qabiilka naga daaya qabiilku waana nafi cadawgaynuna waan idin sheega hadda idna waa ogtiin lambarka koobaad oo leena cadawga koobaad oo bilaanigoon leena waa shaydaanka iska difaac shaydaanka salaada uu ka celin quraanka in akhriyo ka celin waalidka inaad maartay u samafasho ka celin shaydaanka iska ilaali kan koobaad oo Soomaalidu leedahay oo kale oo shaydaanka soo lameeyna waa Itoobiya iska ilaali haddeen ka dhaadhicna waad hoogtay way cadawgaaga u seextay wana ku dilay waan idin sheegay hadda cilmi baaristii laga sameeyay kaniisadda ugu weyn maartay sidii loogu baahilay geeska Afrika kristaanka Soomaalida hadii la yiri maxaa la yiri Soomaalida kristaan ha laga wada dhigo maay kristaan laga dhigi maayo islaamkana waa laga baabi'inaa lagu yiri marka islaamkana waa laga baabi'inaa kristaan laga dhigi maayo way hadad kristaan ka dhigto waxa ku xisaabtanaa jiilkiisa soo socday nidaamkan iyo gaalnimadan say ku sii socday hadu isugu hogaamilayo oo maarto oo ka shaxaya oo wada Soomaalida haduu kristaan ka dhigo qowmiyad kale xoog badan oo kristaan oo maartay gaalnimadii iyo maartay kula tartanta wala naqan mays islaamkana ka baabi'i gaal maartay kristaanna ka dhigin xoolo
sida haddaba na haysata oo nin isu diinkaaga dhigay inuu ya gaari looriya oo intaasoo tana maarata soo saaro usu shaarici qof kastoo muluq iyo waayeel iyo shiiq iyo shaab joogaan isku qarxi waxaa dhan lay ee dadka hantidooda baabi'i naftooda lay waxaa dhan eber ka dhig sukuuriyaad ka ogolaad diinowna kaaga dhig qaaruu diin uga dhigoo ka ogol diin miyaa taas inayn diinayn qof kasta waa ogtahay laakiin waa aqligii siddeetankii markii nidaamkaas xagga cilmi baaristii baa nagu socota marka iyagoo ka shidaal qaadanaya yaan muslim laga dhigin yaan kristaan laga dhigin muslimkana ha laga baaba'sho waa marka walaalayaal aan taxadirno aan dalkeena difaacano qarannimadana jiritaanka dadnimadana aan difaacano cawada waxaad cunaysaa ka hadline awlaadda dhalaysaa fuujarkooda ee mustaqbalkooda ka hadal ha ku ogaan saas ku waxaysan laakiin sidii daanyeerku cawada maanta uu soo daaqay gurina ma dhisto geedu iska fuula cawada saa roob kula daa gacanana waa lee guri isugu dhisto laakiin aqliga kusoo dhici maa nasaas baan naqanaynaa marka daanyeerku gacmuu guri ku dhisto shimbir aan gacmay guri ku dhisto afka ku dhisata ayaa guri dhisata ilaahay baa aqligaas ku hanuuniya daanyeerka geedka saaran oo maaragtay guriga dhisanayn oo kala naqanayna haddaan dowladnimada aan maaragtay aan taageeri weyn waayo gurigaad ku jirta waa dowladnimada haddii meeshaas ka waad arkaysaan hadda kenya iyo etoobiya dhibkay nagu hayaan intaasoo boqol oo kun oo tan oo jaadaha maalin kasta lasoo gelsha etoobiya kasoo gala aniguna hal tan xataa uma dhoofin haddaad macaawis cusub waddo waa lagaa tuurayaa ood wajaha kala gudbi karta hal macaawis ama shaati cusub haddaad wadato wallahi inaad la gelay وانا جناعسي قال الجديدة جناعسي قال أنا جناعسي جيسة ولا ما أقولهم قارئ بربرة كصوب بحاو أم بباصة كصوب بحاو توس وقال إلا على كتانا مجر وحن أنا أدفن مجران وهذا مقليس وزير كان مدي بدي سومال إثيوبيا هل ما أدفن إذا وحنا نسوي في السوق الدون كمجر هدي حتى كوج كلون بالله كلون كان يروح سجاد ما كان ذا بابور كان نقضي واسوق بحو أو عصبية يسيدا ملح يسيدا مارته كلون ما تراد هديك لا يسوق جلد وأغلق بات كم مرة تعمرك حيانا هيسن عصبية كلون ما هيسن أدنى هذا هيسن جاتكم مدام اللقوي والبفائدة تتكلم كهلا لكن الدولار كاقات أو الدولار كاقاته هذيك أنا عوس مارتي مقادرات أو مدد بكوكين أنا ترى ولا لها إن الله هل مكر كين ينام هل كي مراجعات كل الجوجية مدي كذا عدوى أجدي قبل أنا كنت دمتي دولة أنا ما كنت دمتي وايو قبل كاسو وحو نقول يستدن أنا كل لكن دنكم معي حدي أنا كان الجو جين الراحة يبر واقضة يضبط كنورش لقاه الواليا تتشوا كرئيس الحمد لله يرين أيقنا وان درس نوان هو بنيرين هو جاتك عقار كي يقولوا جيران وماشى اللي قالش مركب ولا ليال وين حساب تنو إلهي نكبقنا أقلقان إلهي وحنوسي أنا كوش قيسنا أو نقرنا أمت أقل جادا كوش قيسنا لكن أمت سيدي على بيستينك يضيع جيت كسرنا أنا نقرنا ما يا إذن سلام يا برامج كما برامج أن مركز تبص عنايا وندمن أنا وهذا نكبحه ولا الكلام من مغرنا سوقلا هذا أصول كبحه جبرا سوقليس ويلا سوقلاي قضايا سوقلاي إسلانا سوقلاي وإصدارية هل قفضان الله حتى هل كان قفاي أمارتي أنفعل ويو هذا أنا نكبح بري قف كلام أمارتي سوقليس ما أنا ضد كودن أنا الله ما أديكو هداد ولا الوحن كل شيء يكون قنعيان قف كلا وشاكونا دقن هذا يكون قنعين أو جبك هلاك عدو جينا إن نصيح الناس نبرايو هذا يكون قنعسنا واه مارتي إن حلقة كسونا قتال أركان ضد مملي نمن عدو جيسة جبران عدو جيدا حسيسنا إنه الدلا أدو هدو الدلو هدو بان إيدا الدلنا عنو جيدا الدلا هدو بان أديو كدل ويلكا الدلا بقى بان أدو الدلا وعن صوم أرقنا ميان كنت عنينا مقالات المقصة لحدا كن بيقلشين مارتي لبدا كن يتضبط بلاو جيدا يتوبي صدن كنو قف قبضا يكون دلين يا اسكا وريس صدن كات كنو قف هدي هدير سي جوغ لعين وحي نقلاهين بقلول كنو نقلاهين سوماليد بدن او بوبليشن wax soo saartay naqlahay haddana waaga waa ku joogan oo waa ku dilayaan haddaad midowdood al-shabaab oo baxtiraad ee dawladnimada Soomaaliyeed taageerto kuwa al-shabaab la joogaba ka aqli xumba kuwa qarxinayo
كو لجوجو نجتك مربط إيمان يساي ورأبها يا هو يدا مسلمين إلا دينا تقول متعبس كوا ها اسمه دام إن أديك اللي بدلو هي مسلمين هذا وعن تلك ولا حنونا هاي مركان أركاي الروين كمركان تيجي اللي دلها أنا قدن أنا جين اللي دلها يا نويستا قف كسماسات مركا ولا الأدي هذا السلام ما يا فرتون سود وولا سعدية يا عبد الله يا محمد علي all أو يسودوينا برام كان رشيا القراية أنت سوى ما أنت نجوجا إن شاء الله حفصة هذا كان هو ما سنت معلن إلهي ياخد دوره وحنوب لما مدنمو يوروب مركي ميدودي برواقود فرانسيسكا أنت ذاك بعد فرانسيسكا نقول على الإنجليزية عطا لكم ماله وأنت تكون كنترولون تاي أنت عدو فرانسيسكا لقى ما أقول فرانسيسكا أنا عدو جرمال لقى ما أقول marka annagu Ethiopia ilaa isaas ka naqato walaalkaan ma markay cadawgan igu haysato oo cadawgan fangareynayso oo idu cadow nagu tahay aan anigu walaal ka dhigaa marka maya taas la iska yeeli maayo marka aad iyo aad in salaam intaas uu noo joogaya ilaahay idin dhowro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh